السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين داود يلا كسر دوادا ورئيسكن كوبان وأنو مجال منباصة حرنتا قبل كحيبتا أنو كلية لناي محمد عبد الرشيد أحمد maamulaha guud ee xarunta waxbarashada iskuulada lagu magacaabo Imam Shaafici oo ah iskuulo magaaladan Mombasa ay dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka fureen isla markaana uu Maxamed Cabdirashiid uu yahay isagu maamulaha guud iyo waliba sidoo kale isdabaraha guud ee iskuuladan ayaa waxa ay faraacyo ay ku leeyihiin xaafado kala gedisan oo magaaladan Mombasa aan ka tirsan Maxamed soo dhaw markaa وادوهاي محمد بوتان magacaygu waa maxamed saa sheegtay maxamed cabdirashiid axmed waxaan ahay agaasimaha ama maamulaha guud imaam shaafici group of schools waxaan maamulnaa iskuulaad islaami ah ku yaalo magaala xeebeedka mombasa oona mataqaanaa barana arrimaha integratedka iskuulaadka isku jira isku lifan sida iskuul iyo madrasa leh iyo iskuulka qaybta kale iskuulka leh maxamed waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo dhawaan ka soo qalan jabiyay jaamacadaha dalkan Kenya gaar ahaanna jaamacadda Nairobi University inta ogaalkayga maxay tahay waxyaabaha ku kalifay inaad iskuulka aad aasaasido aad samaysid waa mahadsantahay su'aasha ay weydiisay shakhsi ahaanteeda aniga horta waxaan ahaa nin mataqaana in badan ku jiray maxaa la dhihi jiray fieldiga mise mataqaana dhinaca waxbarashada ha ahaato ibtidaayigayga meeshaan ka bilaabay oo ah iskuulaadkan isku dhex jiro kadibna jaamacadeedaan soo dhameeyey marka anigoo ah saaxiibul cilmi mise nin cilmiga ku dhex jiray in badan waxaan arkay mataqaana inay fursad jirto iskuulo badan lagu abuuri karo gobolkan kostiga amase xeebeedka dalkan Kenya oo lagu tilmaamo meelaha waxbarashada ugu hooseyso balse anaga taas aan aaminsanayn oo mataqaana ummad muslimiin oo adag inay ku nool yihiin in mataqaana caruurahoodii mataqaana wax loo baro maadaama iskuulaadkii qaarkood ay badnaayeen laakiin u badnaayeen dhanka dadka muslimiinta lahayn ayaa iskuulo bilaabo dadka muslimiinta waddankan u dhashtay iskuulo ma bilaabaan marka fursad weyn ayaan aragnay in ummadiina badanayso muslimiintii waxbarashada rabtay inaan u keeno waxbarasho isku dhafan oo ah diin iyo maadi taas ayaan ugu kaliftay inaan iskuulaadka Imam Shaafici group of schools bilaawno baranjiga koowaad oon ka bilaawnay dhankaas Silikoni alxamdulillah successful ayuu ahaa 3 cunug ayaan ku bilaawnay ilaahay kadib waa noo balaariyay maadaama community aan ku dhaxlo in dad mataqaana waxbarashada zaid xaggaas u deecayeen balse haddartaan arkeen fahmeen waxbarashadii maantana ayagii albaabada soo garaacayeen oo rabaan waxbarashada saasa kadib ayaan waxa u soo gudubnay dhankan magaalada Majengo alxamdulillah ayadana ku guuleysanay language center ayaa u bilawnay computer qeybaha ugu barnay haddartaana primary secondary ayaan ugu darnay marka waa arrin aan ku guuleysanay maadaama dadka magaalada ayagana deegaanka u ah lagu dhibaatada ugu weyn ee tahay drugska iyo camal la'aanta dhalinyarada darbiyada fadhiso anagana waxaan u ahayn mufaano mise tusaale ah in dhalinyarada wax qabsan karto anagoo ka tarjumayna taas iyo anagoo ka caabinayna ummadda kale in mataqaana waxbarashada ay muhiim u tahay dadkan reer kostiga ama dadkan deegaankan dega Soomaali ahaatay dadkii mataqaana waddanka u dhashtay labadaba inaan mataqaana waxbarasho tayo lahan siino saasa sababaha waaweyn nagu kalifay inaan mataqaana iskuulaadkan bilaawno alxamdulillah hadda wada sax ayaa noo saaranta inta kalena ilaahay nala garab galo waa gartay waxaa iskuulkan uu ka mid yahay iskuulo badan oo integrated ah oo isku dhex yaalo oo Mombasa ku yaala iskuulkiina maxaad aaminsan tahay kuwa kale oo uga duwan yahay okay iskuulkeena waxyaalo badan hal iyo laba hadaan tilmaamo uga duwan horta iskuul waa iskuul laakiin meelahan uga duwanahay siiba iskuulaadka waxa waaye xagga waxbarashada tayadeena wanaagsan tahay ko bad meesha ugu weyn waxay tahay qiimaha maanta ummadii dhaqaalihii waa iska adag yahay arigan joogno mataqaana shaqooyinka ayaa hoos u gabeen waalidiintina caruur badan ayay dhaleen marka iskuulka kali ay ku hooyeen karaan maanta dhigi karaan aleese waa tagi karnaa qiimihiisa oo jaban waxbarasho heer sarena waa taalo Imam Shaafici run ahaan ka hadlo waayo price-keena anaga waa naqaana marka price gareynayna dadka ugu talgalanahay dadka mataqaana dhadhaxaadka oo aan tabarta yareen laakiin iska dhadhaxaadka oo mataqaana noloshooda soo saaran karo qiimo zaid u fara oo mataqaana u macquul ah ayaan ka qaadnaa waalidkii 3 cunug iyo wixii ka badan watana waa ka faragelinaa xagga mataqaana missionada hadee tahay xagga feeska marka alxamdulillah iskuul lagu hodmay ayuu ilaa haddartaan u aragnaa alxamdulillah uuna yahay insha Allah ahaan doona waligeena insha Allah price-keena mataqaana waxaan noqon doonaa iskuulaadka ugu qiimaha jaban laakiin dad badan gaari karo waxna u faa'iideyn karo waxaa ka dhawaashay dhinaca tayada inay ka mid tahay waxyaabaha la idinku xulan karo tayada marka laga hadlaayo
waxaa la eegaa standardka macallimiinta iyo tayada macallimiinta ay leeyihiin marka idinka macallimiinta iskuulkan dhigaya qaybta hoose nurseryga qaybta dhexe ee dugsiga hoose iyo qaybta secondarygaba maxaad ku xulataan oo aad dhihi kartaan waxa ay yihiin aasaasi waxaas baa macallimiintaasi u ah oonu ku xulanaynaa okay anaga ka imaam shaafici group of schools school ahaan waxaan daryeelnaa macallimiinteena koley waxaan xulanaa ardayda jaamacadaha soo dhameeyeen macallimiinta siba kuwa dhalinyarada ah oo mataqaana enerjiga leh kadib waxaan suubinaa wallahi motivation waa dhiirigelinaa siba xagga paymentigeena oo mataqaana zaidna u weyneyn balse wax qancin karo iyo meelay si fiican uga shaqeeyaan oo mataqaana talentigoodii si wacan loo fiiriyo mataqaana xagga haddee tahay bilaadanimada haddee tahay xagga cuntadooda xagga haddee tahay mushaaraadkoodii meeshii wax ka bari lahaayeen yani materialkii mise waxyaalihii wax ku bari lahaayeen kunti waa ka caawinaa si macallin dhiiran mataqaana niyadda u dhisan tahay maadaama anagna iskuul yar nahano dee anada ku faanayn wax badan aan bixinaa iskuullada kale laakiin waxa yarka aan haysana si wanaagsan ayaan ula qaybsanaa macallimiinteenna waxaa ka wada farxinaa hadkii wanaagsan waxaan siinaa jaa-isooyin meelo fiican ayaa isku dayna inaan geeno hamigooda waa dhisnaa moraalkooda waa dhisnaa dhiirigelin qaasna waa siinaa tobabara qaasna insha allah waa siinaa si kadib ula laabtaan skillska iskuulka ku kobciyaan saas ayaas dhigi karnaa iskuullada kale ugu duwannahay maadaama iskuulkeena uu yaryahay haddana soo kobcayo si xadlan u kobcayo barka ilaah ma hadda iska leh si fiican ayaa macallimiintan u dhiirigelinaa ayagana carruurta ayaa si fiican wax u baran si mataqaana qof dhiirigelin koleeto waa dareemi kartaa qof markuu niyad jabsan yahay niyad jabkii cunuga u dhaafa hadduu niyadu fiican yahayna ardaygii mataqaana wanaagii ula dhaqmaa mataqaana si fiican u baraa waalidiinteenna ku faraxsan yihiin ilaa sofa inta hadda ognahay hadduu ilaah idmo 5 sano kadib maxaad filaysaa iskuulkan xaggee ayuu inuu joogo ayaad filaysaa okay su-aal wanaagsan waay botan okay iskuuladkeena siba maadaama ani aasaasaha guud ah ama CEO-ga dad kalena iga dambeeyaan oo mataqaana guddiga directoryaasha kale ah hadda inta ila joogin anoo afkooda ku hadlayo imaam shaafici waa iskuul hadaf weyn leh waxaan rabnaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo wax kastoo ilaahay qadaro ku dhawaad 6,000 arday inay kasoo baxaan iskuulaadkan siba magaalada Mombasa annagoo ah eeda magacyadeena iyo magacyo kaleba ku shaqeyn doona insha allah si dadka mataqaana waxbarasho tayo leh qiimo jaban loogu geeni lahaa marka mustaqbalka dheer waxaa aragnaa mataqaana arday badan anagoo soo saarayna siba nurseryga haddee tahay primaryga ilaa dugsiga class 8ka arday fiican soo saarno kadibna aan ku darno dugsi sare insha allah mustaqbalka fog 5 sano 6 sano waxaan rabnaa inaan ku darno insha allah college hadduu ilaah noo suurtageliyana 10 to 10 years from now inaan university dadka u furi karno insha allah waa riyadeena taas wax kastana ilaahay qadaro maxamed botan waa gartay waxaa la soconaa Kenya manhajka waxbarashada uu isbedelay manhaj cusub ay hadda la keenay manhajta cusub ee hadda waxbarashada ee Kenya la keenay ma u diyaarsan tihiin inaad qaadan kartaan oo aad ardaydiina aad u isticmaali kartaan ها محمد بوتان وسؤال وناكسن سيب هذا تان سيلاباس كأما كاركلام كوالا بدلي أو هذا وحاجة برنامجيو متقانا CBS معلمين تانو حاسو بنا توبرا يقدرنا توبرهاس أي سوقاتان مركي توبرك سوقاتان كدب أي وحي ماذا سكول كي سي معلمين تكلي أن توبرك عن قدرين أو سي توبران هيجن عروت أبدلان waxaan isticmaalnaa silabaaska cusub oo hadartaan mataqaan manhajka cusub ee dawladda soo dejisay shir kasta oo dawladdu noo wacdo waa tagnaa iskuulada register garaysan ayaan nahnay marka macallimiinteena almost 80% hadda tababarkii way qaateen mataqaana iskuulada kuwaado maasha Allah lagu amaanayo mataqaana maadaama cusub nahay dad mataqaana furfuran oo mataqaana flexible nahay ayaan istii karnaa silabaaska waa qaadanay waalidiinteena wax kasta u baahan way helayaan insha Allah wixii naga dhimanna de Allah na caawin doono insha Allah iyo mataqaana dadaalka la imaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdirashiid axmed oo ah maamulaha guud ee iskuulada imaam shaafici oo ku yaala magaalada Mombasa haddaba daawadayaal saad heshaan macluumaad dheeraad ah oo la xiriira iskuulkan iyo waliba sidoo kale faafahintiisa waxaad booqan kartaan page-ka Facebook-ga ee iskuulkan iyo waliba sidoo kale YouTube-ka page-ka iskuulku uu leeyahay iyo waliba sidoo kale page-keenan subscribe idinkoo saaraya Botan Media oo aad ka heli doontaan معلومات يوليو سدوك لوح كستا أو مهمة. أنت دبكم دونو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.